Okay, and browserka aad rabtid markaad soo kacsatid waxaa qoraysaa marka Google AI Studio waxaad qoraysaa Studio. Okay, waxaad ku dhufanaysaa marka macnaha Google AI Studio aad ku dhufanaysaa waa kan midka saxda ah. Okay, and waa kan Google AI uu isoo saaray waxaan leenahay marka macnaha waan isdiiwaangelinaa marka isdiiwaangelin ayaan ka rabaa waxaan leenahay login get started yaa labada meel macnaha meeshaad ku buuxdaa ninkan oo cadaanta yaa doonteen waa kan dhankan oo buluuga aad ku dhufan doontaa marka waxaa ku hormar get started aan ku dhufaneynaa. Okay, waxaan soo baxay marka macnaha waraaqadan aan soo baxday meeshan waxaa saarayna marka check yar tick saarayna kadib continue ayaan leenahay continue. Okay, waa inoo soo baxay waxaa marka macnaha waxaan hadda asaasi doonaa marka applicationka halkan waa meesha aan ku qoranayn prompti ama qoraalka macnaha kadib waxaa wax kood aad qoraysid malaha waxaa wadada aan raacay ila eg bis. Okay, waxaana marka macnaha build an app that's digital calendar integrated with Google Calendar for prayer time notification and event scheduling. Okay, waxaan ku dari doonaa marka promptigan waxaan ku dari doonaa okay intaan asaasano wix kale macnaha dib ayaan ugu dari doonaa marka waxaan leenahay build ayaan leenahay marka build halkaas ku dhufanaysaa build marka waxaa marka macnaha applicationkan asaga ayaa ku sameynayo waxaad u dirsataa halkan loo iska dheh kadib waxaa marka macnaha applicationka asaga ayaa ku dhisayo application AI Studio marka waxaa qof walba macnaha rajadiisa ahayd inuu application sameeyo ama game oo sameeyo ama waxun oo sameeyo waxaa macnaha sanadahan ilaaha noo jabiyey adigoo jaamacad aad tagin iskool macnaha aad tagin oo wax khibrad aadan u lahayn oo aadan soo barin ya kaliya waxaa macnaha inaad fahmi kartid loo bis ya waxaa inaad fahmi karto kaliya laga marka wax walba waxaa marka macnaha itaabsiya idin tusinayaa applicationka habkan u sameynayo markaa sameeyo kadib waxaa marka macnaha process yar ayuu maraya marka processkaas waxaa in la socodsiinaa rabaa processkooda waxaa macnaha in AI Studio aan ku sameeyo ya markii abka macnaha oo faraha aan ka qaado nadiif oo noqdo kadib waxaa marka waxaad ku xiraysaa Firebase application Allah ku xiraysaa Firebase kadib waxaa laga rabaa marka macnaha inaad ku upload gareyso Play Store-ka ama okay muuqaalka ujeedin waxaa macnaha mid oo asaga soo saaro macnaha soo noqon doono okay iska ba iska dhahno marka dadki saxda soo inuu soo saaro halkan marka qoraal uu soo qoray wuxuu marka take control of calendar oo marka read calendar automatically okay waxaa leeyahay marka enable Google Calendar enable Google Calendar okay hadda ismi ayuu sii wadaa marka way sugaysaa macnaha ilaa uu ka dhameeyo waa waqti yar ayuu qaadanayaa bis. Okay, warqad ayuu noo soo saaray marka warqadan muhiim noo aha waxaan leenahay marka naga xir okay warqadana noo soo bax marka this application macnaha applicationka wuxuu cusubnaaya macnaha geographic locationka macnaha inuu ku shaqeeyo barbarle ah marka ma doonaysaa macnaha in locationka macnaha uu ku sax marka waxaan leenahay allow aan leenahay allow geographic allow aan leenahay waxaa marka macnaha wax walba ku weydiiyo inaad fahmi karto ayaa laga rabaa
حوال فربنا معنا ويدينا إلى application كأسكا كود ديسايو ما وحادي كود أنا وفريسة ما waxaan soo daraa mise waa iska dhaafaa uu kuliya marka aad laga yaabaa inaad iska dhaaf ama kusoo dar inaad applicationkii waa kan waa micnaha applicationka waa inoo dhisay balse waxaa ka maqan ii sheeg pageskia ka maqan oo kusoo dari doonaa waa kan hijri calendarka micnaha intus waa kan hijri calendar oo ujeeda hijri calendar calendar aan caadi ahayn weyaan oo aad u qurux badan marka waxaan ku dari doonaa pages aan ku dari doonaa pageskaas micnaha kor ujeedaan geeskan maka sacuudi carabiya ayuu micnaha ku xiran yahay dhankan waa google calendar micnaha halka google kaad oo xiri lahayd weyaan qaybta saacadan waa 5 saac iyo 6 daqiiqo 50 minute pm waa 12 July 2026 ya waa xilli haween ay tahay ya isla waqtigan hadda atuu waay 22 Muharram 1448 ujeedaan islamic hijri date aku qoran meesha kana laaf scheduler waay ka soo degna marka app nagasti fajr mina waqti suuxi mina waqti mina waay oo mina waqti waay oo bariya mina app next fajr okay maka sacuudiya mina oo ku xiran yahay out ticket confirm waa kan fajrkii 10 saac 10 saac daqiiqo waqti mina la tukanayo sunrise waa xilliga micnaha qoraxda micnaha ay soo baxdo 10 saac iyo 46 daqiiqo doorka waqti micnaha uu ku aadabaatana waa 6 saac iyo 26 daqiiqo waqti micnaha casirkii sidoo kaleete maqribtii cishihii ujeedaan dhanka kaleete marka waxaa luqadan waa luqad English marka waad u sheegay micnaha waxaa leedahay luqad micnaha Soomaali iyo English yahay dhig hadda aan u qori doonaa hore waxaan samayn doonaa laakiin pageska aan u dirsan doonaa si micnaha mobile ahaan marka markaa ku dhufatid mobile ahaan oo kugu saaro ujeedaa qayb wuxuu leeyahay tablet ya qaybna wuxuu leeyahay saaska hadda micnaha arkaysiin computerka saasna waa mobile qaybta mobileka waa kan ujeedaan المواقيت أو قرن مجلس أو جدا المواقيت أو قرن أوكي قرارنا معناها وقرار معناها API أو معناها خلط كتير ما كدب أكسي حدونا حالا وجدا وهرأ سو أرتين هذا تشي معناها وخيبتنا وخيب معناها موبايل كهاب كله وأكلها أوكي وحدينا مرك معناها وسمي بيجز يا لينا مرك add pages playlist. Okay, and add pages like home page of calendar, settings, playlist, and etc. waxaan dhan marka micnaha ku dar pages kan ku dar hadana marka page ka micnaha home page oo calendar ka settings ku dar playlist ku dar iyo etc. ka front aan u dirno okay hadana oo ku soo daray home ka ku soo daray micnaha oo calendar ka playlist kan waa kan bidaan calendar ka playlist marka loo waa kan micnaha waqti micnaha salaada ayuu soo saaray qaybta home kan waa kan waa saacadii iyo wixii soo saaray iyo arankii iyo wixii soo saaray marka qaybtan kale to calendar kan waxa waa si toos calendar ku geena marka halkan waa aadaan micnaha qaybta aadaanka weeyaan marka inta marka ku dhufto marka micnaha aadaankii wixii ay aqrinayaan
هذا معناه wax aadaan ma jiro aadaanka waxa waaye ana ku daraayo gadaal ugu daraa marka yuruful fajr aadaan waa ka aadaanka meelahan ayuu ku daraa hadda wax aadaan laha ma cod laha ama sood laha meesha kuma jiro ujeedaan marka waxaan dib dambe aan ugu soo dari doonaa qaybtan waa qaybta micnaha ducada ujeedaan digital degree counter ujeedaan subhanallah formation alxamdulillah meeshaan soo qoray marka qayb tasbiix oo ujeedaan kala ku dhufto micnaha waxa waaye alxamdulillah 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 waa 33 jeer meesha laga rabo alxamdulillah alxamdulillah waa tasbiixda subhanallah kor horinta ku dhufaysaa waxa leedahay subhanallah 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 3 jeer la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah astaghfirullah 3 jeer allahu akbar 3 jeer halka oo ujeedaan hoos soo deg marka morning meeshaan waa subaxi micnaha yaa waa macnaha adkaarta subax la akhristo adkaarta habeenkii la akhristo iyo tan la akhristo xilliga salaada morning waa subaxi evening waa fiidkii ama habeenkii prayer micnaha waqtigii salaada micnaha ducooyinka micnaha waqtiga kala akhristo okay morning waa ducada micnaha asbaxna asbax mulku lillah evening ku soo micnaha allahumma bika asbaxna wa bika amsayna prayer agu soo marka waa allahumma anta salaam wa bika barakatuh wa ikram ujeedaan laakiin pageska meesha uu dhigay anaga hadda micnaha ma karabno pageska waxa karabnaa sida applicationka marka mobile la isticmaalayo inuu micnaha hoos oo dhigo sida qaabkan oo kale ayaan doonina marka hadda aan u sameyn doonaa asaga u dir doonaa marka waxaan leenahay applicationka ayaan hadda u dir doonaa okay waxaan u dhahnay micnaha sectionka oo micnaha pageska waxaad dhigtaa micnaha qaybta footerka baarka hoose micnaha baarka waxaa la micnaha sida hadda micnaha inoo muuqato oo kale inoo ka dhigo sidaan ujeedaan pageska halkaan loogu talagalay micnaha homeka playerska wax dhan micnaha halkaan loogu talagalay in micnaha ay ka muuqdaan saamkii loo ma rabo micnaha inoo soo socdo dhan ma rabo micnaha inoo meeshiis taagnaado waa loo baahan yahay okay muxuu inoo sameeyey marka oo qabtay hoos ayuu dhigay ujeedaan meesha sida micnaha loogu talagalay ayuu hadda u dhigay applicationka sidaan ayaa loogu talagalay marka qaybta homeka waa kan waa qaybtan waa playerska calendarka waa kan aadaan iyo qaybtan oo settingska ah okay waxaan sameyn doonaa marka applicationka haddeer waa mid micnaha oo black ah ujeedaan marka waxaan ku dari doonaa micnaha sweet dark oo ah micnaha inaad iftiin ka dhigato marna micnaha mute ka dhigato ayaan ku dari doonaa waxaan sidoo kale micnaha ku soo dari doonaa aadaankan gadaa ayaan ka sameyn doonaa balse abka hadda qayb settingi aan fiirino marka settingiga waa kan maka london new york micnaha qaahira iyo jakarta micnaha magaalooyinka micnaha dooran kartaa magaalada maka waddanka sacuudi arabiya eletijik micnaha lambarka oo wato waxaalaas marka waxaanad micnaha inaan ku mashquuli maaha balse waxaan tusi doonaa micnaha sida aad u samaysan lahayd oo keliya okay waxaan dhihi doonaa marka qaybta settingska waxaan kusoo dari doonaa qaybta iswidarka kusoo dari doonaa sidoo kale waxaan kusoo dareynaa luqadaha micnaha kusoo dareynaa luqadda ingiliiska iyo luqadda carabiga iyo luqadda soomaaliga saddexdaas luqad ayaan kusoo dari doonaa iyo waxaan ku dari doonaa sidaan had idin sheegay sweet dark aan ku dari doonaa okay
okay waxaan dhahnay marka micnaha iswiidar kusoo dar sidoo kale micnaha luqadaha kusoo dar adaan English iyo Carabi iyo Soomaali sidoo kale waxaad ka dhigtaa mid default ah waxaad ka dhigtaa luqada Englishka ayaan dhahnay asaga ayaan noogu soo dari doonaa okay muxuu inoo sameeyay marka aan eegno hoos marka soo degno qaybtan setting marka tagno waxa inoo soo baxay marka setting-ga waa kan qaybtan waa qaybta light ka ahayd ujeedaan waa habeen iyo maalin micnaha ama light iyo dark micnaha mugdi iyo iftiin ujeedaan qaybtan waa qaybta micnaha luqadaha default ahaan wuxuu ka dhigay Englishka qaybtan waa qaybta Carabiga marka micnaha waxay dhan isku bedelaan marka luqada Carabiga ay isku bedelaan ujeedaan okay luqada Soomaaliga sidoo kale luqada Soomaaliga asin micnaha waa bedelaya marka inkii tag luqada waxaad ka dhigtaa marka Soomaali okay ujeedaan marka micnaha Soomaali ayuu ka wada dhigay micnaha uma qora kala bixida iyo waxaas micnaha waxay dhan waxa micnaha luqada Soomaaliga ayuu ku qoray ujeedaan marka qaybna waa daarki okay marka micnaha ka dhigno qaybta micnaha daarkiga micnaha cadaanka indhaha uma roona marka cadaanka indhaha uma roona marka English ka dhig qaybtan daar ka dhig okay maxaa inoo haray marka okay marka ujeedaan micnaha qaybta luqadaha iyo wixii micnaha ku soo darnay qayb settingska ku soo darnay light-ka iyo dark-ga ku soo darnay marka application-ka waa kan waa mid micnaha hadda dhisan oo shaqeynaya asigoo ah micnaha tablet ahaan sidaan ayuu u shaqeyn doonaa micnaha tablet-ka waa kan meelaha ayuu soo saari doonaa micnaha pageska home waa kan playliska waa kana calendarka qaybta micnaha aadaanka ujeedaan micnaha qaybtan micnaha qaabka u shaqeyn lahaa tablet-ka okay by computer ahaan marka dhahan micnaha waa kan sidaan u shaqeynaa by computer ahaan haddii aan doono asiga dhan micnaha hubin karnaa full ka dhigi karnaa marka waa kan waa by computer weeyaan ama TV iyo waxyaalahaas qaybtan waa qaybta tasbiixda ujeedaan qaybtan aadaanka weeyaan qaybtan waa micnaha qaybtii ducooyinka micnaha subaxi iyo haweenkii iyo maclaha salaada kadib qaybtan waa pageska ujeedaan marka hadda waxaa inoo qusay marka micnaha maclaha qaybtan oo mobileka ileen waxaa laga isticmaali doonaa micnaha badanaa mobileka laga isticmaali doonaa okay aan soo yareyno qaab mobile ahaan aan ka dhigno marka by mobile ujeedaan mobile homepage-kan marka micnaha sidaan waa ka bedeli doonaa sidaan waa ka bedeleynaa qoraalada micnaha meesha ku qoran waa ka bedeli doonaa homepage-ka okay qaybta playliska marka aan tagno marka waa kan hijriyada waa micnaha 27 Muharram 1448 qaybtan waa qaybta micnaha subaxi micnaha ama salaada xigta waqti micnaha ay soo galeen okay marka iyo waxa lagu xiran yahay iyo xilliga micnaha la adimo marka waa saxan kartaa micnaha 6 saac 26 daqiiqo micnaha adinka dii micnaha Soomaali waxa laga adimaa micnaha 6 saac 15 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo meelahaas la adimaa marka masjidka qaar micnaha iska adimo 6 saac ugu la gaarin way jiraan balse saxda ah waa 6 saac iyo rubi 12 saac iyo rubi الله وقتياس معناها القديم مركا أدين واسح كرتا جنبالي توس واسعر كرتا أوكي فريكوينتي أوكي مركا حوا على دي راجرتو مرة دي أرد معناها ماشي أنا وجدا معناها فيكس أو قرنتا حوا على راجرتو إيش الأصية على معناها إن تو إيروريس معناها رين ديكور وحاجر معناها لبا إيرور أما لبا خلط أو كاسة معناها كودك أو جديسة مركا على فيكس على معناها فيكس وحوا مركا حجاج ومعناها أما السمي حجاج يا okay fix marka dhaad marka waad sugaysaa marka ilaa uu ka hagaajiyo waad sugaysaa marka khalad inoo jiro xitaa waxa ka ogaa kartaa halkan ujeedo micnaha hoose waxa ku qoran 7 iyo calaamad buluug ah meel oo 3 iyo calaamad guduud ah marka calaamadan guduud waxay sheegaysaa in cilad oo jiro ama khalad oo jiro marka calaamadahan kale oo buluug ah waa mid sax ah uu sheegaa marka micnaha 3 qalad jirto 7 micnaha way saxan tahay meeshan waa ka ogaa kartaa marka mararka qaarna waxa micnaha sida hada aragtay micnaha fix دايرو انت اب waxaa soo macna ku soo saari doona meesha aad macna kala socon kartaa okay ciladii waa inoo xaliyay oo jeedaan hada macna wax cilada macna ma laha
hoosna ujeedaa macnaha 6 oo blue ah inoo saaro marka ciladii wixii waa uu naga xaliyay marka waxaan kusoo dari doonaa marka macnaha qayb oo login ah macnaha ama sign up macnaha qaybta isdiiwaangelinta aan kusoo dari doonaa waxaan kusoo darinaa qaybtan iyo settingiga ayaan kusoo dhex dari doonaa macnaha qaybta settingiga kusoo dhex dari doonaa okay mid kale waxaan samayn doonaa calendarkan ujeedaan waxaa ka rabaa macnaha inuu noqdo macnaha homepage ahaan homepage marka la tago inuu sidaan u soo saaro laakiin waxyaalaha macnaha oo iga khariyo ayaan doonaa marka homepage-kan ujeedin waxaa ka rabaa inuu calendarkan oo macnaha homepage-ka uu noqdo okay calendarkan meesha macnaha wuxuu noqonayaa homepage-ka maadaama lagu bedelay halkan waxaa ka dhigi doonaa marka macnaha qaybta tasbiixda ayaan ka dhigi doonaa tasbiixda oo hadda macnaha gudaha ku jirto tasbiixda oo qayb bresta tasbiixdan ayaan ka dhigi doonaa aadaan waa kan tasbiixdan markii macnaha halkan la geeyo macnaha qofka soo ku geysto macnaha hore oo tasbiixso macnaha subhanallah waa geysana walxamdulillah allahu akbar okay qaybta settingi marka macnaha asagana login kusoo dari doonaa marka ila socdo okay waxaan dhahnay marka macnaha login ama sign up macnaha ama qaybta isdiiwaangelid macnaha kusoo dar page-ka settingska gudihiisa kadib waxaa marka macnaha calendarka homepage ku bedeli doonaa calendarka booskiisa waxaan ku bedeli doonaa tasbiix ayaan ku bedeli doonaa hadduu ilaahay idmo insha allah okay aan eegno marka macnaha uu inoo sameeyey qaybta settingkii aan booqano settingkiisa markaa tagno waa kan ujeedaan sign in iyo sign up iyo macnaha sign up google marka waxaa macnaha waa ku dhufanaysaa kadib macnaha meesha iska diiwaan gelinaysaa waa qaybtii iska diiwaan gelinta okay saar oo ku sheegay mararka qaar wuxuu soo saari doonaa marka macnaha errorkan soo saaraya wuxuu leeyahay macnaha two errors running the code oo leeyahay marka waxaad ku dhufanaysaa fix ku dhufanaa errorku waa kan ujeedaan connection blocked ah qoran meeshaan marka hadda macay ina isdiiwaan geliyo macnaha waxay soo qoray valid to connect a Google account Firebase or macnaha Firebase hadda nagu xiran laakiin account waxaa jiro Firebase aan samaysan accountkaas laga yaabaa inuu si automatic u xiraayo marka Firebase macnaha si loo sameeyo waa intuu doonaa oo horeen aan dhahno marka macnaha ciladan macnaha naga xali aan dhahno marka fix aan leenahay marka ciladan ay xalin doonaa connection blocked meesha ku qoran isaga ay xalin doonaa as fiican macnaha waan macnaha u fiiri doonaa hadda waxaa sameynayna marka page-kan isku bedelayna marka page-kan waxaa leena marka home page-ka waxaad ka dhigtaa calendarkaad ka dhigtaa macnaha aan dhigana marka home page
okay prompting aan qoran macnaha change the calendar page into home page ama marka then change the position of calendar page into digital counter okay marka qaabka ka dhigo macnaha aan sugno okay ujeedaan home page wuxuu ka dhigay macnaha calendarka ayuu ka dhigay playerska waa sidii qaybta digriga macnaha ujeedaan calendarka macnaha meesha ku jiray digri ayuu ka dhigay marka iyo tasbiixdii meesha macnaha oo laga tasbiixsan lahaa ayuu ka dhigay oo ujeedaan waxaan macnaha ma u baahana inaad macnaha adii juhdi badan aad geliso kood qorto wax ma u baahna koodka waxa waaye AI ayaa diyaar ku ah oo ku qoray adigoo u sheegay bis macnaha meeshan saan ka dhig guduudka dhig inta cagaar ka dhig waxyaalahaas aad leedahay bis wax kale kama baahna okay home page waa kan hadda waxaa rabaa marka home page waxyaalaha macnaha inaan ka qariyo balse waxay ku xiran tahay waxaa inaan ka qariyo macnaha inaa san inkaan waxyaalaha macnaha aan soo xaliyo marka dib baan ka xali doonaa waxaan wax weyn ma okay waxaan fiirin doonaa marka macnaha qaybtan oo isdiiwaangelinta sign ama login aan fiirin doonaa cilada daaya jirtay marka cilada waxaan dhahnay xali marka inoo xali in kale aan fiirin doonaa okay sign in aan ku dhufano marka okay waa ujeedaan hadda inuu hagaajiyay macnaha hadda wuxuu ileeyahay marka macnaha gmail-kaaga ku dhufo ileeyahay marka gmail-ka waxaa waa macnaha gmail-ka aan ku sameynayno application-ka waa marka hadda iska diiwaangelinayno marka waa ka laabanayna okay application-ka waa kan waa application hadda dhammaystiran ya wuxuu u baahan yahay kaliya in lagu daawaco play store-ka ama appka pure ayuu u baahan yahay okay ciladaa soo baxday marka ciladan isla markii macnaha ciladaa soo bixayso ujeedaan qaybtan macnaha cilada meeshan waa laga arkayaa midda kale waa kana macnaha kuleeyahay 2 errors running the code kuleeyahay marka fix ah leedahay marka fix okay cilada markuu xaliyo kadib waxaan sameynaynaa macnaha qaybtan inuu qoranta macnaha share ayaan ugu qoran ujeedaan qayb waa publish qayb waa versions qayb waa integration midna waa securities midna waa github okay halkan waa chats macnaha qaybta hadda aan ku jiro macnaha oo AI hadda oo la sheekeysanayo waa qaybta macnaha chatska weeyaan marka saddexdan hadda macnaha labada saddexdan shay ay wada macnaha inoo soo saaraya marka hadii aad kulli inuu ku soo saaro waxaa leedahay marka macnaha calaamada setting-gi aad ku binaysa marka setting-gi markaad ku dhufato calaamadaha dhan ku soo saara chatkii sharekii publish versions integration marka calaamadan yar oo flaarta kali ku siinay marka inta dhimana macnaha soo bixiyso securities iyo github okay marka waxaan eegno marka macnaha intoo ka xalinayo waxyar okay ciladii wuu xaliyay marka waxaan sameyn doonaa marka appkan hadda macnaha ma aha mid macnaha oo online ka yaal macnaha ma aha marka waxaan dhigi doonaa online-ka ayaan dhigi doonaa okay waxaan sameyn doonaa macnaha si waxaan macnaha inoo qarsamaan waxaan sameynaa macnaha waa iska diiwaangelinaynaa si macnaha waxaan hadda qoraalka macnaha orange ah macnaha security tahay Google calendar-kaaga macnaha integration-ka uu dhammaystiran yahay weli macnaha si toosan macnaha si direct macnaha uu dhammaystiran yahay wuxuu ku dhammaystiran yahay macnaha browser gudihiisa macnaha browser-ka gudihiisa oo macnaha si rasmi ah macnaha oo uu dhammaystiran yahay marka Google API standard macnaha uu isticmaalayaa access tokenskiis macnaha waa mid macnaha oo la ilaaliyo macnaha inta memory loo ilaaliyay anda mana macnaha sidoo kale macnaha ku store gareynaa macnaha serverkii macnaha serverkii ku store gareynaa okay tan waa digniin marka ka soco okay qayb diiwaangelinta aad okay diiwaangelinta weli macnaha cilad ayaa ka jirto wuxuu leeyahay marka macnaha open up in a new tab wuxuu leeyahay okay marka asigana cilada noo soo saaro kulli ciladaas macnaha waxaan leenahay fix aan leenahay okay application-kan hadda ma aha mid macnaha online-ka yaala marka online-ka ayaan dhigi doonaa marka si aan u dhigno online-ka waxaan sameyn doonaa qaybtan calaamadan setting-ga ku dhufaneynaa kadib waxaan leenahay qaybtan oo share-ka ku dhufanay marka share ayaan leedahay share markaa kadib
halkan ay qoran tahay restrict only people specific can access aad click ku siinaysaa kadib waxaa leedahay public ujeeda public anyone with the link can view macnaha qof walba oo linki ku dhufsa arki karo public ayaad ku siinaysaa marka si toos wuxuu noqonaa marka mid oo online-ka laga arkaa kana have view access changes successfully uu soo qoray okay halkan wuxuu ku yahay marka macnaha linki copy ku yahay marka macnaha copy aan dhahno okay macnaha copy link waa kana linki markaad click ku dhufato waxaad macnaha si toos u dirsan kartaa sida WhatsApp-ka ama Telegram-ka ama social media macnaha meelaha loo isticmaalo aad ku dirsan kartaa marka waxaa macnaha waad ku sii tijaabin kartaa macnaha by mobile aan ay u tijaabin kartaa marka aniga hadda macnaha muhiim ah inaad mobilkii macnaha ku diro ku tijaabiyo marka by mobile aan oo haystaa marka waxaan u baahanahay kaliya in aan dhamaystiro hadda macnaha waxa u baahan yahay oo kaliya inaan ku xiro inaan macnaha app ahaan ka dhigo hadda macnaha waa app application macnaha ma aha hadda macnaha mobilka lagu soo kar ma aha balse application-ka asigoo sidan ah linkigan ayaad qaadaysaa marka qaad macnaha waxaad wada tagaysaa application loo magacaabo application loo magacaabo waa kan appkan aad ku soo dhisaysaa marka ujeeda application no code app builder yaa create an app linkaas soo qaadaysaa application-kan aad markaas macnaha ku sii dhisaysaa marka hadda macnaha cashirkeena meeshan aan ku joojin doonaa waqti kale macnaha waxaan kasii bilaabi doonaa sida aan ugu xiri lahayn macnaha application-kan oo aan u dhigi lahayn application caadi mobilka lagu soo ridin karo marka aan ka dhigin kadib waxaad ku xiri doonaa Firebase kadib waxaan si toos u dhigi doonaa Play Store-ka ama appki pure oo application laga soo degsado hadduu ilaahay idmo insha Allah